shirka jiraayid aniga qabtay oo ah hormuudka jaamacadda Indacadays International University oo adeeg badan ummadda Soomaaliyeed u haysa. You have to be apologize. You have to be listen to me. You have to be apologize. Waxayna ka qalin jabisay aan idhaahdee kulliyadda la yiraahdo laguma dhaamay dhaqaaq. First of all, let me thanks the leadership of Prime Minister. He stand up when we affected in Puntland flood, especially in Gardo. And this third time they affected the Gardo and they destroyed many households and they affected, they are dying 8 people. waayahay soo dhow waan leenahay waa ardada maanta qaadanaya shahaadooyinka waa jidka fadhiiso dadka fiiriyo faduuli ayuu ka baxay isaguna fakaltiga la yiraahdo. Sorry, my language is not very good, but I will ask help. Oh, no. Thank you very much. I am happy to meet you. soo dhaweynayna laguma dhaamay dhaqaaq isaguna maanta ardada qaadanaysa shahaadooyinku ku jira. Certain is everything is okay, and the civilian, the local, they are very happy to come us by the very strong hand. That's why the civilian they get now to hope maybe they will get a life, something like that, and I'm very happy. soo dhaweynayna waa ardada iyada ugu firfircoon buu kamid yahay ee ka baxay jaamacadda Indacadays International University. dalku dib ugu celiyo dagaalkiisa ka sibir loogi Soomaali soo soo qaadiyeen You have to be apologize. Soomaali soo soo qaadiyeen Qodobada xilibaa qodobada ku tahay